iyadoo maanta si rasmi ah uga bilaabmeen ciyaarihii gobolada Somaliland garoonka caalamiga ah Alamse Stadium ee magaalada Burco ayaa waxa ay ciyaarahan inta ay socdaan ku kulmi doona gobolada Sool, Sanaag, Togdheer, Daadmadheer, Xaysimo, Badhan, Saraar. munaasabad kooban oo loo qabtay furitaanka ciyaarahan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Somaliland Axmed Cabdi Kaahin, mas'uuliyiinta iyo ciyaartoyga gobolada bariga Somaliland. ugu horeyntiiba waxa furitaanka ciyaarahan ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Somaliland Axmed Cabdi Kaahin, wasiirka wasaaradda waxbarashada Somaliland, xildhibaano ka tirsan golaha guurtida Somaliland iyo barasaabada gobolada ciyaarahani ku kulmi doona iyagoo dhamaantoodba ku dheeraaday ahmiyadda ay ciyaarahani u leeyihiin isdhexgalka bulshada iyo gobolada bariga Somaliland. maanta oo bishu ay tahay 5 October waxa ka bilaabay garoonka Burco ciyaarihii gobolada ee Isreebka. Boorama waxa ka bilaabmay ciyaarihii gobolada ee Isreebka. maanta ciyaarta halkan ka dhacaysay iyo Boorama ka socotayba tartankaasi wuxuu noqonayaa labada gobol waxay ku tartamayaan wanaaga ciyaar wanaaga ay ku tartamayaan gobolkii qaata ciyaar wanaaga biladiisu helaya todobada gobol ee halkan ku tartamayaana waxay ku tartamayaan Isreeb waxa kale oo gobolkan ku guuleystay inuu helo roogii sanadkan oo loo diray imika Boorama waxay ku guuleystay roogii hadaba gobolkan Togdheer barasaabkooda iyo maayirkoodaba waxaan ku amaanayaa sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen goboladii ciyaaraha u yimid maxaan ku dhahdaa ka yimid goboladii bariga oo dhan waxaan ciyaartoygana ku farayaa inay muujiyaan ciyaar wanaagaasi waa lagu tartami doonaa ilaahay ayno hagaajiyo ilaahay aanoo dhib yaray garsoor ahaan annagu maadaama gudoomiye garsoorkaay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in ilaahay noo dhib yareeyo hawsha garsoorka iyo dhammaantood xidhiidhkayagaba culayska leh ee gobolada ay iskugu yimaadeen toddobada gobol aad iyo aad baad mahadsantihiin. ciyaaraha maanta ka bilaabmay labada gobol ee Togdheer iyo Awdal shucuurteeduna aad bay u sarreysaa inaan furitaankii ka qayb galana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. farxad bay noo tahay inaannu 6dii gobol kala soo qayb 7dii gobol ee bariga kala soo qayb galno ma aha inay kubad ciyaaraan laakiin inay isbartaan oo ay saaxiibaan oo ay generation recognition waxa la yiraahdo isdhexgalka dhalinyarada ayaa muhiima. ciyaar nabadgelyo ku dhamaata ku bilaabanta kuna dhamaata ilaahay waxaan inooga baryayaa in uu mideeyo dhalinyarta ciyaaraysa qalbigooga ay noqdaan ku sharaf iyo wanaag u soo hooya goboladoodii u kala xalmayno. waxaan farayaa cod kastoo arrintaas ay khusaysato oo ay khusayso in ay u ahaadaan dhex ciyaartooyga toddobada gobol ee halkan isku yimid sababtoo ah qalbigu waxa la yiraahdaa laabalabula haddana waxaynu taraagaraynaa inaynu isku dayno inaynu u muujino inaynu dhalintaasi dhex u nahay. simada labaad annagoo cusub sidaanu u wadana hawsha waa aragtaan rajo wanaagsan baan ka sugayaa Burco aan laga badin jirin maanta Daadmadheer cusub inay ka badiso waan rajaynayaa haddii la ka dhigo. furitaanka munaasabadani ciyaaraha gobolada bariga Somaliland waxa kulankii koobaad fooda isku daray xulalka labada kooxood ee gobolada Togdheer iyo Daadmadheer. ciyaartani oo ahayd mid weerar iyo weerar celin waxay ku soo gabagabowday haafkii hore 0-0 taageerayaasha labada dhinac oo sacab iyo sawaxan la fadhiyay taarabuunka iyo waliba ciyaartoyga oo talooyin badan ka soo qaatay tababarayaashooda ayaa waxa isugu soo laabteen haafkii dambe ciyaarta iyadoo ku soo gabagabowday gool 0 halka ay guushu ku raacday gobolka Daadmadheer. Wabarwaaqo Aadan Maxamed, shabakada caalamiga Odweyne News, magaalada Burco.